ama qalin maal fahan cinkee ahayay bulshada ka haystaan marka la yiraahdo qoraa runtii bulshada Soomaalida xoogaa waxa uu qabtaa in lagu tilmaamo bulshada oral society waa bulshada aan wax akhrin oo aad u yaqaan cilmiga dhagoolaha that's why bulshada Soomaaliyeed hadda maanta qoraa buug qortid runtii dhiirigelin badan ka helimaysid runtii adduunyada waa ogtahay hal abuurka oo lagu tartamaa yani marka bulshada Soomaaliyeed xoogaa waxaan ka dareemayaa inaysan dhiirigelinaynin dadka hal abuur kale oo yani doonay inay noloshooda guul ka gaaraan marka xoogaa inkastoo isbedelo la deeramaya laakiin isbedelku wuxuu yahay mid tartiib oo yani oo si loo ah ku soo aada weyn waxa tahay qoraada ayra runtii in xilligan la helo qoraa da'yar ah maadaama ay ku soo bateen hadda ay ku soo badanayaan haddana wadankii in muddada burbursanaa oo hadda maxay ahayd cagahiisa insha Allah la rajaynayo inuu ku istaago burburkii la soo maray miyaa ka qayb noqday in aad noqotaan qoraa amaba ay soo bataan dhalinyaro qoraa aad iyo aad waan aaminsanahay runtii dhalinyarada hadda tusaalahan Muqdisho kala 10 sano ka hor qof ku fakarayay inuu maanta qoraa noqdo runtii way adkeed oo waxa dhan waddanka dhan basiif loo waro ku jiray marka hadda waxaan isleeyahay qorayaasha inkastoo tayadooda oo yar tahay maadaama aysan dawlad iyo meel akademiya rasmi ah oo inkastoo akademiyada qaranka oo buugaagta dib loo hirgeliyay laakiin tii waxa weeye sidii la rabo uma shaqaynayso laakiin hadda dhalinyarada Soomaaliyeed kacdoon waxay wadaan akhris iyo qoraal taasoo runtii fahanka dhalinyarada iyo bulshada Soomaaliyeed aan silahay runtii wax weyn ka bedelaysa tusaale ahaan bandhigga Muqdisho Book Fair markii la sameeyay 2015 iyo maanta wacyiga Muqdisho yaala runtii waxa weeye kaafi kala dheeri runtii bulshada hadda waxay dareemayaan isbedel waxa la sameeyay madallo waxa la sameeyay naadiyaal akhristaasoo fursad u noqonaysa runtii bahda qalinleyda Soomaaliyeed ama dadka aan ku abtirsado oo baamilkii labaad watahay sidee loo heli karaa qoraa amaba dhalinyaro da'yar ah oo isla markaana qalin maal ah oo tayo leh sidee loo heli karaa runtii aniga waxa aaminsanahay in la heli karo kow in qofka at least laga soo dhiso guriga tusaale ahaan inkastoo Soomaalida xilliyada ugu dambeeyay dad reemi iska ahayeen oo generation